أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ومالين وين مانتا ومسلمين تكوين وعيد الفطر ومالين مضان شعارات إسلامية إن لموتشيو ومالين أي تاي دادكو إني سلامتا يا صدقاء يا بشارين يا wax walba la isla gaadho oo caruurta iyo dadka waaweyn iyo inta masaakiinta ay walba maanta oo kale la siiyo waxa ay leeyihiin iyo fursad ay leeyihiin midnimada ummadda in la ilaaliyo waa shay muhiim ah inta markaan ka gudbo anoo hambaliyeeyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan Jubbaland munaasabadan ciida xaalad waxaynu ku jiraa iska adag wadan weli soo kabasho ku jira caqabado iyo waxyaalo badan caraaqil badan ay hor taagan tahay baan ku noolahay waxa laga gudbi karaan ay noqoto in midnimo iyo wadajir iyo ummadaas oo la ilaaliyo isku duubnidooda ay muhiimadda noo tahay waxaa hubaala waan garanaynaa dowladnimada Soomaaliya inta istaag ay qaaday iyo burburka ay martay iyo qorsheedkeedii halkay maanta soo gaaraysa marayso waxay u baahan tahay in halkaas iyadoo cadow gudaha uu jiro oo dhib badan oo nimanka khawaarijtiina aad u caqabado badan iyo culays badan ugu hayaan ummadda inaan si fiican uga faa'iideysano dagaalka intii loo midoobo laga wada shaqeeyo dagaalkaas iyo sidii la qaban lahaa iyo talaabooyinka laga qaadi lahaa waan bogaadinayaa cid kasta oo dagaalkaas ku jirta ama ha noqdeen ciidamada qalabka sida ama ha noqdeen maanta shacabka Soomaaliyeed oo ciidanku labadiisa heer ha noqoto ama ha noqoto kuwa hadda gaar ahaan Puntland dagaalka maanta ka jira arkaysaan culayska iyo sida marka loo midoobo guulaha laga gaarayo dadkuna marka adigu tallaabo qaada lagu caawin karo wax laga shaqeyn karo waxaa hubaal ah dowladnimada Soomaaliya wali waa aduun waxa wali la isu keenayo oo la isu dhaweynayo oo la soo jiijiidayo markasta oo inaga khilaafka dhexdeena uu yimaadana burbur iyo waxa ku imanaysa mushkilad cadawga gudaha ee lagula jiraan oo ka faa'iideysanaya aan dib u soo noqono waxa dhabta inoo hor yaalla aan ilaalino qof walba maanta mas'uuliyaddu in bay ka saaran tahay مسؤولية النصارى وضرائبك qof waliba inta la gudbo sidoo uga qayb qaadan lahaa u gelina aan ka faa'iideysano hawsha aan u midowno taasi ha noqoto marka waxa dhabta ah ee maanta dagaalka lagu geli karo dagaal dawlad baa geli karta dawlad baa shaqada iska leh ciidan qaran baa ka shaqeyn kara laakiin shacabku way caawin karaan way kala shaqeyn karaan bayska iyo asalku shacab ma ah عرضنا إن للسوء إذا ماذا لبده هي الستيت هالنقطة وفضل على أما هالنقطة من دولة الحياة أما كي دولة الجولات كواس أو بان إلا حوتشيو عسكري يعني شعب وكيل قبيل وكيل لكن دريس كمان قاتوا عسكري عيدنا والدولة مثلا يوصلها سكون نقطة هذه لكن ما أنت أدب وقول نقطة وبربر وكيل هذا عيدك عيو بفائدة ونقطة تابرك دب وقول نقطة عيدك خلص يمضانت إليه سيد اسمه كيف كرر وحنا المال قليلنا هالنقطة عيدا يلسمه يهيك الكيسة يقلب كيسة ينا نقول لنا أنه هذا اللي قبائل يا شعب هذا وحاسك الله معنا بدل نوم صغير سياسة الصومالية وحي كتب القرآن السودي ما أنت هل كان جملك سوق قال لي قف كي يحمق قبل كرايو وحيوبا أنت وحلوم اللي يسيها والله ولا شقين أيوه وحيوبا أنت اللي يسوي ماده لا ولا فريستو لا يسوي تنازله لا ولا شقيه وريسبيه كي تريسين أوسي سعى الله دجالك الشباب كان كل شيء خوارج أنا سنة طلابه ولا وسق قادر إن تلاقى ولا شقيه أنا سنة إنه واحد كله يا الله ده هدي وده كان لك بصدق معنا كوما سمعين يسوع
siyaasadda aad dan ka leedahay mustaqbalka leedahay xataa meelaad ku fulinaysa ma helaysa waa gabaabsi way soo gaabanaysa taa markaa ha noqoto wax dhaba intii la isugu yimaado in laga wada shaqeeyo ay noqoto siyaasadda Soomaaliya laga leeyahay iyo qofkii dan kale aan ka wada shaqeyno midaas oo mid walba heerka ay leedahay ha noqoto heer laga wada shaqeyn karo la isaga iman karo laakiin maanta hadduu waddanku sii burburashaadna ay gacanta ku dhigaan waxba nin rajo siyaasad kalena kama helayo dowladnimadii Soomaaliya qorshidiinkiina meeshaas ku baaba'aya taa marka ha loo soo jeesto qof waliba mas'uuliyadda uu ku magacaabay yahay ha garto berri waxay taariikhda ka qorayso hal la iscafiyo aan ka wada shaqeyno dowladnimada aan u soo jeesano dagaalka shabaabka aan dhiirigelina ciidanka oo shacab iyo bulsho siyaasi iyo dhaqan iyo cid waliba ha kala shaqeyso ciidankaas oo aan dhisna ciidamada oo aan dagaalkaas noqono mid aan u midaysanahay kaasaanan diyaar u nahay haddaan reer Jubbaland nahay wixii aan qaban karnay waxaan samayn karnay aan samayno in la isu yimaadana juhdi kastoo ku bixin karnaan ku bixinayna la isu yimaado gobol la isugu yimaado laga wada hadlo waxa dhantaa la isweydiiyo Soomaali maanta ay ka gudubto marxaladan ay sii galaysaa inayna madowga ku sii socon qofna kaliya wax ma qaban karo far kaliya forma dhaqayso shay asalkii waa midaas Jubbaland caqabado badan baa jira garoomaa xidhan siyaasad baa laga shaqeynayaa waxa shacabka taabanayaay wax dhibaato cadowna uu kaga faa'iideysanaya bam la tuuro iyo dhib la geysto iyo wax la sameeyo iyo shacabka kan lagu sameynayaa iyo kan waa mid dowladnimo waxa shaarka loo qabay dowladnimada loo sheegay waa mujtamacaas iyo shacabkaas haddii iyaga ay noqoto inaan garan weyno waxay mudan yihiin oo nasiib darro kale warcidda argoos inooga baahan iyo cidda dagaal inooga baahan iyo cidda wax naga dhexeeya waa kuwa waddanka haysta ee qasaya ee dhibaatada nagu wada khawaarijta aan tooda ka shaqeyno aan iyaga la dagaalano aan iyaga u midowno laakiin innaguna isku soo wareegin waan soo dhaweynayaa wax kastoo baaq nabadeeda waan soo dhaweynayaa in la wada hadlo waan soo dhaweynayaa waxa aan ku jiraa inayna noqonaynin waxna bixinaya waxaan annagu Soomaaliyeed maanta sida qabo inaan caalam kasta ku dooyo waxba nooma qaban karo annagu aan ka shaqeysano aad iyo aad baad mahadsantii qorraxda kulul ciid mubaarak insha Allah taqabbal Allah minna min salih al-a'mal waxaan aad ilaahay ugu mahadinayaa ilaahay ugu mahadcelinayaa sidoo loo soo dhaafiyay bishii Ramadaan iyo ciyaadadii aan ku jirnay waxaan rajeynayaa insha Allah ummadda muslimiinta kulligood inay waqtigiisa ku gaaraan wanaag